beri baa Sacuudi Arabia waxa ka lumay ninkii la oran jiray Cabdi Xaangi ayaa baasaboor ka lumay baasaboorka malafkiisii baa xafiiska jawaasaadka yaal markaasuu wuxuu isiri gabadh buu yimid wuxuu yiri adeeray ii garaac xafiiska jawaasaadka iigu garaac arjigan dabadeedna gabadhii baa si wanaagsan u garaacday oo wuxuu yiri adeer xayaa ku dhalato waxay tiri mudug baan ku dhashay adigu gabadha way soo sheegtay adigu aakhirkii waxay noqotay gabadh reer gaalkacayooda dabadeedna wuxuu yiri uraaska Umar Maxamuud leeyahay magac miskiin laga ma ahayd dadka waa la sheegaa boogtay gabadh uraaska yahay dabadeedna wuxuu yiri markuu soo eegay ayuu dabcayn lacag siiyay waxay tan Soomaalida soo dhoofto lacag ka maqaato dabadeedna nin Axmed Kashif loo oran jiray reebo laabo wuxuu damay inuu gabadha guurso Axmed gabadha guursaba yiri dabadeedna wuxuu isii saa intuu eegay isii tan malaku oo marka wax kale kuma waxayna wuxuu yiri Allah yaariga Cabdi Xaangi gabdhaha soo dhoofoodan naba jeceliba dabadeedna Cabdi Xaangi markaa uu gabiyay wuxuu yiri hablaha magaca reer mudug ee dunida maashay ee ma dhahowdiya ka badan midhaha dhaameelka sida hadalku leeyahay dad midhar ka weydiisay sida meedhaxday calaliyaan mararka qaarkood midna uma ekay waxay ka tahay muunad gooniya lagu moodmankii oo ku dhigay qurici maaneed marqan weyne iyo riinjiyo daadku mulciyay marankii dharshada duubanay milc qaba oo hayso marmaroodka iyo geedaho mulfu dheeraaday lagu moodmaygo ku daay madaxa toobood iminka waa la midab dooriyo malaha maamuuse intii aan la maydhaamin ee mudanihii joogay manidooda kama beermijiin ruux madow wihiyay lagu mood magaalka horiye markadii camay iyaday aroos maamiyeen miidha jiidaliya oo meel walba looga yimid aqalka moolaysa sagayaal intay muubsadeen dooxa mirinay maxamuud garaado fardaha maaj soo kiciyay oo dooxadii midhasheed uga madiixaya oo inama maamuli tiqin madax rogaalayso oo sida tanmiiraadka iyo miigu bixinaya lagu moodmayga ku day madaxa toomoodi lagu mood midii loo bogiyo muhiye baaruudi madaxnimada reer Maxamed baan muran ku ognayni iyadoo mu'tamar ay dhigeen meertadii boqorka oo maraguduudi ka timid madasha buuhoodle oo ay mashxaradeen hablihii macatabiyeynay malugti gabdhaha bahar sameeyaan kuma kubay mayl socodka naasaha mucda meesha laga saaray ee madax hore ay yihiin madaw dhalaalaya dhexda muqatika iyo xubnaha la isu miisaamay malihiina inaan qaawiyo idinku moodeeni midigtay saartiye salaan maraha joogtay macbuudkan ku dhaartay inaan taaban meel kale ninkii naaga maali hablaha oo matalayay axmedowna meherisa nala macaanaydi manaadan guursano adigu wad madax banaanaydi meeliyadna wad haysatiyo miiri lacageede marka tiri ma sii raacin waa ka mashiqsaday mamalo libatay seemaandha ka noqotay gabaygii markii uu inta tiriyay ayaa nin Cabdi Madoobe la oran jiray Cabdi Axmed Nuur la oran jiray oo yimbi albaxar jooga ayaa wuxuu yiri sahrar gabayga loo soo tishay dunida saameeyay surma seegtamo haboon sayniska u eegi abidkayba sawdkaaba maqal saaran geeyay haday sabi xalaaleedahay inuma sugnaadeen sodon bixinaya iyo horweyn simanka dhiibnaaba adeerkaysamow gabadhu ay sahal inoo dhaafin marban sarro weyniye ka dayay sabaradii haw saddex iyo markay 10 jirta laga sadqaataa midan hadalka kala soocin iyo sabi yar mooyaane subad booli baa lagu dhigo waa la saanyaday shaylaan u raabsan lahaa suuqa reer Yurub sugi maynin meel ku dhaway timaha saydha sodon bixinaya iyo horweyn simanka dhiibnaaba adeerkaysamow gabadhu ay sahal inoo dhaafin markaas aniguna gabaygii soo galay waxaan yiri Sacuudiga markii aan jiray iyo soodinta Carabta suugaanta gabaygaaga ayaan cidisalowgeyni suma seegta malahayn tii saafiga ahaay sagiir iyo kabiir wabiyuhu waysagii saxay sida sayniska looga dhigay shay la saacidee samow samatari aadam ban sawd ka soo celini sagiir Umar ciyaal waysagii si sagoontiyay sayidkii madideen hadii uu saaka nool yahay Soomaaliya oo idiliyada siisay quruxdeeda sifaheeda goorta qarkiya suurada u gaara qalbigayga sare joogsiyo soo saldhigi waayay sida suufiyaasha kala saarka tubayay isalowge saaxiibadaysan hadeerahay sida nimanka siinka iyo xiriirada silga kuuyaaga hadda suru intaan joogsadan samada eegay sitiin ka geeyo rabo saami igu raacay anigoo 70,000 milyan safka lacag dhiiba hadaan laysan dihin waxba la igu saxuldoobin ama aan intaan soo socdaba suurka la afuufin intaan dunida saaraysareeyo ku sugaya caashiq yaabkiisa iyo jacaylka waxaan ka baqayaa intii aan gabadha u iman iyo qiyaamo dhaco bahalku noocaas horta leeyahay qiso kale barigi dambe waxay timid gaalkacayo dabadeedna markii la ii sheegay baan Cabdi Xaangi naxariista Allah siiyay waxaan Cabdi Xaangi gabadhii waxa la gaalkacayay timid gabaygana waa kula waday barigi kuma imano gabadha ma garanayo itilmaan wuxuu yiri markii ay sidii reer Ciraaq caliyow la fiyoto nabiga markay xidhatay iyo caliyihii laabta qaar baa timaha ciil ku qaba laguna caayay awadeeda dhabarkeeda kaga ciyaaraan buudi war waa garanaya iska dhaafban maalintii dambe anigoo gaadhigeen cali dhawaaq la socda
oo gaadhi sheegay oo uu yidhi califood baa gaadhigaa la soo socda yaa la yidhi yuushaha cabbin isagoo inooga warramo gabadhii mooyaane bakhaadii indha yare markii aan soo fadhiisan lahaa ballayseeyey hortaagado waxaa la yidhi sidii madaxweyne eeriboor ku soo degay adigoo qolka v i b-ga ka warramo oo kale ayaa la yidhi adigoo warramo mooyaane iga wallad fadhiisanay markaasaan warramay waxaan idhi intii aan carrada meeray iyo caalamka dunida wax badan baan caddaan iyo madow cawlo jiifsaday wayana cishqigu waa bele carabahay geeyi wayana caqiidada dhigto eebbe caabudayay wayana cilmiga yeedhsado caalim ii mariye wayana cabbiray sees sugiya daar cimaaradahe wayana ciyaamada xidho caaqil ku ahaaye wayana intaan ciidan galay calanka lai dhiibye wayana cuguudaalo geel soo ceshay iliye wayana ciyaar guday intaan soo cawaysimaye wayana cidaha kii hableelay calaamadiye tixdaad culusay goortaan maqliyo codaya jiibkaaga wayana cabdiyow waanigii cuur ka faashaday wataan caddaan wadaday cidhifyadeennii cashadaan idhaha saarayuu ila dhamay ceesh cirkoo horay roobkoo curtiya camalka jeegaanta ama carafo oo loo babaxay ciidda barakaysan oo cimidha shaalka iyo dadkii wada cigaal qaatay cadceeduna markaas soo baxdaan caadno weli fuulin oo caynkii jinsigu midab cagaar yeeshay oo ay cuyuun aragtidii cawlaleed noqotay codida jidhkeediiyo xubnahan cidina gaadhay cabbaryaha cunaha loogu dhigay sida mascaanoodka cudoonaashaha labada naas caadil uga beeray iyo camal samaanteedu waa shay cajaa'ibahay cabbirkiiyo timaha iyo sidii reer ciraaq tahay casho keliya kay qaabishay calam la noolaada asalkii jannada buu cabbo caafimaad qaba waxaa la jannada casharkeeda qofka cabba ama casharkii jannada buu cabbo caafimaad qaba waxaa la yidhi qofka jannada biyaheeda cabba dib uma haraaday in filjannati maa sharbo laatad ma abad jannadu waxay leedahay biyo qofka cabba uusan dib u haraadin anigu markii dambe waxaan ba idhi miyaan haraadaaba waydin salaamaya marka gabadhii xaggee ku dambeysay gabadhii waxay ku dambeysay ma taqaanaa nin baa naga soo afjaray gabadhii oo tiri anigu guursan maayo taariikhdaydu sidaas ahaanaysa gabaygiina oo xataa nin baa gabaygu wuxuu yidhi laamiga togdheer intay balaa tegay meesha la yidhaahdo dubbe ayaa wuxuu tegay meesha la yidhaahdo gaalkacyo xusig bal gabadhii aad soo aragtay dabeedna waxaa leeyahay gabadhii gaadhiga kana qaadadoo burcay aadadoo way dhoofaysay dabeedna wuxuu yidhi laamiga togdheer bay jirtaa wuxuu yidhi sidii geel wax badan laasadaar laga ladaabsiiyey oo laanta dheeraatay iyo lebi ku soo oomay oo doob u liilgalay aroor luuqis ugu qaaday laqayada jacaylka qalbigu ii lalmanayaaye dhurkay ugu abuurtay iyo xubbigu waa la dhigu weyn laamiga togdheer bay jirtaa taan u liilgo'ay diyaaradaha lalaya hawada sare ku leexeeya haddii aan ku leedayn lahaa waayo lacagti halkii ay ku libidhaan intaa lifka ku hayaa waa laa shak reer nebi inay layn ku leedahay haddii aan leeyahay waa huri lahaa dunida laabkeed gabaygiioo halkaa socda ilaa akhri nihaayad oo halkaa socda oo wareegaya ayaa nin habar yoonis ahoo reer caynaansho ah oo la yidhaahdayna yuusuf bidaar yaa gabyada wuxuu yidhi gabadhii anay aroosii tahay dabeedna silsiladii waa xidhantoodii marwo cidina u gabyi mayso in arooska loogu duceeyey mooyaane gabaygii berigaasuu naga xidhmay xagga gabadha laakiin gabadha waxay tidhi anigu jacaylkaygu waxaan doonayaabay tidhi magacaygu haddii aan reer yeesho isagoo aan bixin wuxuu u ekaanayaa behebla keliya